Soo dhawaada asxaabta muuqaalkan kooban waxaad ku baran doontaa sida loo isticmaalo applicationka Mix ama MEXC iyo sida trade looga qaato, sidoo kale sida take profitka iyo stop losska loogu xirto. Marka ugu horreeya applicationkaad soo fureysaa. Okay, marka xigta waxaad sameyneysaa waxaad tagaysaa marka anaga targetkeena waa meesha trade-ka option badan buu leeyahay, qeybahan fara badan anaga marna waxaan u soconaa sida trade looga qaato iyo stop losska iyo take profit sida loogu xirto. Okay, meeshan waxaad taabaneysaa qeybtan hoose ee dhexe ee ku qoran tahay trade ee labada fallaar ay ku sawiran tahay. Markaad taabato meeshaan kusoo baxayso. Meeshaan markay kusoo baxdo waa inaad soo doorataa lacagta aad rabto inaad ka trade gelisid. Si aad usoo doorato lacagtaas waxa aad taabaneysaa marka halkaas meeshaan hadda calaamadda aan ku saaray ayaad taabaneysaa. Markaad taabatid waa search gareyneysaa. Marka tusaale hadda ani waxaan rabaa lacagtan loo yaqaano high ayaan rabaa inaan ka trade geliyo. Lacagtan soo doortay. Markaa lacagta soo dooratid marka labaad waxaad dooraneysaa meeshaanaad imaaneysaa. Meeshaas markaad timaado hubi inay ku saaran tahay limit. Markaad saarato limit meeshaan ku xigto qaanadan ku xigtana waxaa laga habeystaa ama laga doortaa qiimaha aad rabto. Macnaha marka aad rabto lacagta inaad gadatid qiimaha aad ka rabto. Tusaale hadda lacagtan qiimaheeda waxaa u marayaa 1.755 u maraa. Haddaad rabto marka isla qiimahaas iyadoo maraysa inaad gadatid waad ku dhaafaysaa. Haddii laakiin aad rabto in qiimo hebel markay gaarto, macnaha meel hebel markay ay gaarto oo kale inaad gadato, qiimaha saaranaysaa. Lacalla waxaad rabtaa lacagtan qiimaheeda marka uu kor u kaco uu gaaro 0.8 aad rabtaa inaad gadatid. Marka waxaad ka dhigaysaa meeshaas waa tiri 0.8 aad ka dhigay. Ama waxaad rabtaa isla hadda meesha ay marayso inaad ka gadatid, waxaad saaraysaa marka qiimaha ay marayso aad saaranaysaa oo ah 1.754. Midda labaad, marka labaad waxaad imaanaysaa meeshaan hoose ay ku qoran tahay total USDT oo ah halkan. Labadan qaanad oo kaleeto waa ka soo boodaysaa. Labadan tan iyo tan hadda muhiim kuma aha. Soo dhaaf. Qaybtan marka waxaad ku qoraysaa lacagta aad rabto inaad ku trade gareysid. Lacalla waxaan rabaa aniga $50 baan rabaa inaan ku galo. $50 halkaas kore marka waxaa kugu soo qormaya $50 inta ay ku goynayso, inta lacagta inta high ay ku goynayso ama inta kiribtada aad rabto inaad ka trade gareyso ay ku goynayso ayaa lagugu soo qoraa. Okay, intaas markaa habeysatid sidoo kale waxaad taabanay meeshaan si aad ugu xirto take profitka iyo stop losska. Waxaad taabanay meeshaan ay ku qoran tahay TB/SL. Markaad taabato labadan qaanada ku soo baxayso, tii hore TB ku qoran, tii hoosena SL. Labada waxaa soo gaabiyay take profit iyo stop losska. Meesha kore take profitka ku qoranay. Ani lacalla waxaan rabaa inaan take profitka ka qaato lacagta marka ay gaarto 2. Sidoo kaleeto stop losskeygina waxaan rabaa oo kale inaan ku xirto marka ay hoos u dhacdo 1.5. marka midaas adeeg ku gaartahay lacagta markaad soo analyze gareysid fundamentally iyo technical markaa wax walba dhanka walba ka soo fiirisid adigaa saaranaya. Markaad soo hubsato labadaas qiimaad saaranay marka kadib buy ayaa leedahay. Marka kadib meeshaan ay ku qoran tahay buy aad ku dhufanay. Just markaa buy ku dhufato hadda aniga araaga iguma jirto, laakiin wuxuu ku leeyahay wuxuu ku soo saarayaa description kooban oo ah lacagta aad gadan rabto iyo stop losskaaga iyo take profitkaaga iyo qiimaha ku gadanaysid oo dhan ku saabsan uu ku soo qorayaa. Kadib haddana okay aad leedahay. Markaas ayay lacagtu ku gadmaysaa. Wuxuu ku lahaa marka fariin waxaa ku soo dhacayso oo ku leh si successfully ayaad u gadatay lacagtaas. Markaa gadato kadib intee kala soconaysaa
waxaa lacagtaas kala soconaysaa meeshan ay ku qoran tahay positions iyo orderka inta order ku furan kala soconay hoostaan. Marka waxaa ka fiirinaysaa inta lacag ay ku gadan ama inta trade ku jirtid meelahaas ayaa lagala socdaa. mahadsan saaxiib, haddaad muuqaalkan wax badan aad ka faa'iiday, please share gareey oo subscribe-tana marna ha ka tagin.